ninkani waa qofkii ugu horeeyay YouTube-ka muuqaal soo geliya muuqaalkanina waa muuqaalkii ugu horeeyay YouTube-ka la soo geliyo kanina waa qofkii ugu horeeyay abid YouTube-ka wax ka daawada haddaba xagee ay ka dhaceen raggii aaladda YouTube-ka sameeyay yeese ahaayeen oo xagee ay hadda joogaan muuqaalkeenan ayaan ku falanqayn doonaa ee soo dhawow daawade oo muuqaalka like saar ugu horeyn aaladda YouTube waxa sameeyay 3 wiil oo saaxiibo ahaa laguna kala magacaabi jiray Jawed Karim Steve Chen iyo Chad Harley waxay saddexdooduba shaqaale ka ahaayeen company-ga weyn ee PayPal kadibna muddo ay fasax galeen waxayna ku fikireen bal inay sameeyaan website yar oo muuqaalada la soo geliyo waxa markii ugu horeysay ay aasaaseen aaladda YouTube taariikhdu markay ahayd 15 December 2005 ninka lagu magacaabo Jawed waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay YouTuber ah ee YouTube muuqaal soo geliya waxaanu YouTube-ka soo geliyay muuqaalkan idin muuqda. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that taariikhdu markay ahayd 24 April 2005 muuqaalkaasi oo uu ciwaan uga dhigay Me at the Zoo oo muuqaalkii ugu horeeyay abid YouTube-ka laga daawado ninkan Jawedna waxa uu noqday ninkii ugu horeeyay ee YouTube-ka sameeyay muuqaal soo geliyay iyo waliba mulkiilihii iyo maskaxdii ka dambeysay aaladda YouTube muuqaalkaasi yar ee uu YouTube-ka soo geliyay waxa uu kaga waramayay koox maroodiyaal ah oo meel ku xareysan haddaba markii uu Jawed sameeyay aaladda YouTube waxa isna channel YouTube samaystay saaxiibkii Chad isla 24 April sidaasna wuxuu Chad ku noqday qofkii ugu horeeyay ee YouTube subscriber dhaha labadan channel ee idin muuqdaana waa labadii channel ee abid ugu horeeyay aaladda YouTube Jawed oo ah mulkiilihii iyo aasaasihii aaladda YouTube wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd 28 October 1979 waa Jarmal asal ahaan Bengali ah oo Muslim ah waxaana dhashay saynisyahannad Jarmal ah taasoo ku takhasustay cilmiga biochemistry-ga Jawed waxa uu aaladda YouTube ku iibiyay markii ugu horeysay qiimo dhan 1.65 bilyan waxaanu ka iibiyay shirkadda Google taasoo maanta bilaayiin dollar ka samaysata application-kan yar ee ay 3 wiil sameeyeen YouTube-ka ka hor waxa muuqaalo gaagaaban la soo gelin jiray website yar oo lagu magacaabi jiray Vimeo kaasoo soo shaacbixi aaladda YouTube-ka meesha ka baxay isaguna halkani waa page-ka Xasan Cali ee muuqaalka like saar una sii share garee saaxiibadaada kale mahadsanid.